maamulka kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa gabi ahaanba waxaa la filayaa in isaga hari doonaan hamigeedii ku aadanaa xidiga Sancho ee ka tirsan kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund maadaama ciidankaasi reer England ay sheekadiisa aad u sii dheeraanayso maadaama aysan bixin karin Manchester United qiimaha Borussia Dortmund doonaysa in ciidankaasi ay ku soo xurayaan haddaba tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester United ee Macallin Ole Solskjaer ayaa markaa xusaya in muhiimadiisu ay tahay in Manchester United ay hesho kaliya ciyaartoy awood badan laakiin aysan Manchester u baahnayn ciyaartoy ku yimaado dhaqaale aad u fara badan haddana marka dambana ugu dambeyntii ku fashilmi karo horyaalka wadankaasi Ingiriiska Sancho wuxuu ka mid ahaa 20 jirida ugu hadalhaynta badan ee suuqa kala iibsiga waxaana wararka qaar warbaahinta wadankaasi Britain ay xusayaan in ay kooxda kubadda cagta Manchester United ay tahay doorka ugu muhiimsan ee wiilka reer England ee Sancho waxaana uu iska xiray albaabada dhowr kooxood oo ay ka mid yihiin Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Tottenham oo dhamaantood aad u baadigoobay xitaa Liverpool Sancho ayaa aad u dooranaya kubadista stadiyaha Old Trafford ee kooxda Manchester United balse waxa uu aad ugu walacsan yahay arimaha ku aadan lacagiisa waxaana uu xusiyaa in Sancho uu aad u doonayo sida ugu dhaqsiya badan xil ciyaareedkan inuu macsalamayo Bundesliga wadankaasi Germany balse Manchester United ayaa la faahsan yahay inay waqtigan xaadirka ay u dhaqaaqayaan ciidanka ka tirsan kooxda kubadda cagta Wolves Adam waxaana la xusiyaa in laacibkaasi uu yahay xiddiga kaliya ay markaa ku bedeli doonaan Sancho haddii sheekadiisa ay qaban waayaan kooxda kubadda cagta Manchester United man waxay doonayaan in ciidankaasi kooxda kubadda cagta Wolves ka dhaadhiciyaan inay markaa u soo boqoliyaan istaadooda Old Trafford haddii sheekada Sancho ay meel u dhici weyso ay u tahay ciidaankani Adam Traore bartilmaameedka xiga kooxda Manchester United ay ka doonayso xil ciyaareedkan dhinaca suuqa kooxda kubadda cagta Barcelona ee ka dhisan horyaalka Spain ayaa sidoo kale doonaysa sida ugu dhaqsiyaha badan inay gacantooda ka bixiyaan xidiga u dhashay wadankaasi Croatia Ivan Rakitic maadaama Ivan uu sii joogi doono horyaalka wadankaasi Isbaanishka xiriirka wanaagsan uu la leeyahay kooxda Atletico Madrid awgiisa warbaahinta Spain waxa ay xusayaan in kooxda kubadda cagta Barcelona ay markaa qorsheynayso in ciidankaasi ay sida ugu dhaqsiya badan ciidanka gacantooda ka bixiyaan inta uusan suuq xurta uu kaga dhaqaaqin xil ciyaareedka soo socda stadiyaha Camp Nou wiilka reer Croatia Ivan Rakitic ayaa dalabyo muhiim ah ka haystay Premier League laakiin wuxuu u furay daaqad kamid ah u dhaqaaqistiisa horyaalkaasi maadaama la xusay in ciidankani 14 kulan ee La Liga uu ka soo dhex muuqdo xil ciyaareedkani waxaana loo arkayaa in ay Barcelona u baahan tahay dhiig cusub si ay natiijo xoogan ugu gaarto markii loo eego loolanka adag ee tartamada kala duwan ee laga ciyaarayo Isbaanishka siiba horyaalka La Liga wadankaasi Isbaanishka oo waqtigan xaadirka si xawli ah ay ku dhaaftay kooxda kubadda cagta Real Madrid Barcelona waxay ku jahwareysan tahay habka ciyaareed ay ciyaartooydooda ay soo bandhigayaan taasi oo aysan qancinin taageerayaasha kooxda kubadda cagta Barcelona sidaas darteed waxaa la filayaa in ciyaartooy cusub ay kooxda Barcelona qorsheynayso ciyaareedkani inay suuqa markaa u soo galaan maamulka kooxda kubadda cagta Bianconeri Juventus ayaana markaa qorsheynaya inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay u dhaqaaqi doonaan ciidanka qadka dhexe ee Chelsea Jorginho oo la doonayo in mar kale dib lagu soo celiyo seerada wadankaasi Talyaaniga jirida Calcium Mercato ee dalkaasi Talyaaniga ayaana markaa xusaysa in tababaraha kooxda kubadda cagta ee Juventus Mauricio Sarri uu aad u doonayo in ciidankaasi mar kale ay wada shaqeeyaan waqtigan xaadirka qorshaha tababaraha kooxda kubadda cagta Chelsea Frank Lampard uma muuqanaysa inuu aad markaa ugu qanacsan yahay ciidankaasi Jorginho isagoo ka doorbidaya ciyaartoy kale oo markaa ka dhex muuqanaya suuqa iibsiga ciyaaryahanada balse kooxda kubadda cagta ee Chelsea ma dhigaysan doonta ayaa la leeyahay ka yar 50 milyan oo lacagta Euro-ga oo dollarhan u dhiganta 56 milyan waxaana tababaraha kooxda kubadda cagta Juventus Mauricio Sarri uu doonaya in ciidankaasi uu ka dhigo xidigaha uu doonayo inuu u xil saaro hoggaanka qadka dhexe maadaama ciidankaasi Jorginho uu yahay ciyaaryahan aad ugu muhiimsan marka loo eego kubadaha joojinta iyo dhaqaaqa waana mid aad u soo jiidanaysa qab ciyaareedkiisa tababaraha kooxda kubadda cagta Juventus Jorginho waa dooqa koowaad ee tababaraha kooxda kubadda cagta ee Juventus Mauricio Sarri laakiin waxaa laga warsugi doonaa bal in ay bixin doonaan qiimaha waqtigan xaadirka kooxda kubadda cagta Chelsea ay doonayso in kaliya ay dhigaysato in keerna aysan aqbali doonin waa 50 milyan oo lacagta Euro-ga Napoli ayaa sidoo kale kamid ah kooxaha sida gaarka ah ee ayna markaa u daneynaysa xitaa waxa ku soo biiri karta ayaa la leeyahay Inter Milan maadaama sidoo kale la xusayo wakiilo kamid ah maamulka kooxda kubadda cagta ee Inter Milan ay bilaabeen qorsho iyo ka dhaadhicinba fikir ah in Jorginho marka loo dhaqaaqi karo ciidankaasi ka tirsan kooxda Chelsea
ee Jorginho. marka kana tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester City macallin Pep Guardiola wuxuu leeyahay anigu ma rumaysni in waqtiga kan xaadirka kooxda kubadda cagta City ay u baahan tahay ciyaaryahanno cusub inay markaa ay ku soo kordhiyaan garoonka Etihad Stadium kadib kooxda kubadda cagta City oo gool daro xun kala kulantay horyaalka wadankaas Ingiriiska gaar ahaan kooxda kubadda cagta Southampton kulan ciyaareedkii ugu dambeeyay. Pep wuxuu leeyahay tani shaki ma ahan waa mid ay markaa tahay kubadda cagta in kaliya laga eegto haddii natiijo xooggan ka soo gaarnay Liverpool waxaa natiijo mid la mid ah naga gaartay kooxda kubadda cagta Southampton waana mid kaliya aan doonayno inaan markaa aad uga fiirsano marka aynu marti u nahay kooxaha inaga soo horjeeda ayaa laga soo xigtay Pep Guardiola wuxuu qirayaa saddexdii kulan oo markaa martida uu ahaa kooxaha Premier League in markaa gooldaro uu la soo kulmay haddase waxa uu tilmaamayaa in waqtiga kan xaadirka kooxda kubadda cagta City ay haysato ciyaartoy ku filan una doonayo in waqtiga kan xaadirka uu xoojiyo kulamada ka harsan horyaalka wadankaas Ingiriiska farqi aad u sareeya ayaa markaa u dhaxeeya Manchester City iyo kooxda markaa championka Ingiriiska ee Liverpool. Pep Guardiola ayaana markaa xusaya in isbedel adag ay sameyn doonaan balse marka hore waxaan isku shaandheyn doonaa ciyaartooydeena inta ugu muhiimsan kadib ayaana waxaan u fikiri doonaa ciyaartooyda kale ee markaa u qalbi kara mustaqbalka kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Laacibka kooxda kubadda cagta Barcelona Lionel Messi sheekooyinkiisa toddobaadkan ayay aad markaa u sii maraysaa maadaama ciyaaryahankani Lionel Messi la xusayo in uu aad markaa diyaar u yahay ka dhaqaaqista kooxda kubadda cagta Barcelona oo muddo aad u fara badan uu la soo jiitamay tan iyo sanadii 2005 ciyaaryahankani oo aad markaa ugu soo dhaxmuuqday kooxda kubadda cagta Barcelona. Leo ayaana markaa la aaminsan yahay in xiriir kala duwanba uu markaa la sameeyay kooxo kala duwan ee ka dhisan tartamada qaaradaas Yuruba laakiin ray ahaan ayaa la xusayaa in labadii kooxood ee toddobaadkii ugu dambeeyay badalabeeda degdega ay ka soo gudbiyay oo ay ka mid ahaayeen sida Manchester United iyo kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain laakiin waxa sidoo kale qorshahaasi ku jirta kooxda kubadda cagta Manchester City. wiilka reer Argentina ayaa arinta uu ku dhawaaqay xil ciyaareedka soo socota waxa ay nijab xoogan ku riday madaxweynaha kooxda kubadda cagta Barcelona Josep Maria waxaana uu xusayaa in Leo uu yahay geesiga kaliya ee hogaaminaya kooxda kubadda cagta Barcelona waan dareemi karnaa niyadjabka ee inta badan ay u geysanayaan warbaahinta wadankaas Isbaanishka balse waxaan ka dhaadhicin doonaa Leo wax walba uu ku qanacayo inaan markaa u samayn doono arrimaha saxaafadda ee aadka markaa bartilmaameedka kaga dhigtay ciiraan Lionel Messi waxaan la tiigsan doonaa maxkamad ayaa laga soo xigtay Josep Maria. wiilka reer Argentina ayaana markaa sheegay in uu aad u nacbeystay hadallada goosgooska ay qaar ka mid ah warbaahinta Spain ay markaa ka bixinayaan iyo su'aalaha aadka u qaldan ay markaa weydiiyaan waxaana sidoo kale uu tilmaamay Leo inuu aad markaa niyadiisa ugu hayo isbedelada iyo hoggaanka ee kooxda kubadda cagta Barcelona wuxuuna niyadjab xoogan laga dareemayo kulamadii ugu dambeeyay ee kooxda kubadda cagta Barcelona gooldarooyinka ay la kulmaysay taasi oo fursad xoogan u noqotay kooxday aadka ugu xifaaltamaan horyaalka wadankaas Isbaanishka ee Real Madrid. laakiin Leo ayaa sidoo kale la xusaya haddii arrinkaani caqabadiisa la dabooli waayo in markaa ay dhici karto in sida uu dhaqsiyaha badan uu u soo dhaqaaqo sida kooxda kubadda cagta Manchester City iyo kooxaha kale lacagaha aad ku faraha badan iyo ciyaaryahanada la hortaagan kooxda kubadda cagta Barcelona inay u gacan gali doonaan si ay u helaan wiilka reer Argentina ee Lionel Messi. marka kana kooxda kubadda cagta Lazio ee ka dhisan horyaalka dalka Talyaaniga ayaa doonaysa in qiimihiisa ay hoos u dhigi doonaan xidiga Milinkovic Savic ciyaaryahankaasi oo noqonaya xidigaha uga hadlay inta badan ee suuqa. madaxweynaha kooxda kubadda cagta Lazio ee Claudio Lotito ayaana markaa kalsooni weyn ku qaba in ciyaaryahankan xil ciyaareedkan gacantooda ay ka bixiyaan maadaama uu yahay ciyaaryahan lacag aad u fara badan ee Lazio ka sameyn karto xil ciyaareedkan. markii hore madaxweyne Lotito ayaana markaa ku biicilay ciyaaryahankani adduunyadeed gaaraya 100 milyan oo lacagta Euroga. jirada Calcio Mercato ay soo xiganaysaa in madaxweynaha kooxda kubadda cagta Lazio Claudio Lotito uu markaa u doonayo in ciyaaryahankaasi uu ku dhaqaaqo xil ciyaareedkan adduunyadeed gaaraya waa 70 milyan oo lacagta Euroga. farqiga markii hore 100 milyan waxa u dhaxeynaya oo kaliya 30 milyan oo gabi ahaanba ay hoos u dhac xooggan ku sameeyay kooxda kubadda cagta ee Lazio. laacibkani Milinkovic Savic kooxaha sida weyn u baadi goobaya waxay ka soo jeedaan Premier League waa sida Manchester City, Manchester United, Chelsea, Liverpool laakiin waxa la xusayaa in sidoo kale ciyaaryahankani dalabyo kale ee ka soo gaarayay sida kooxaha Paris Saint-Germain, Barcelona iyo kooxda kubadda cagta Real Madrid. xitaa Atletico Madrid ayaa ka mid ah kooxaha sida weyn markaa u qorsheynaya ciyaaryahankani Milinkovic Savic waxa kaliya isugu soo hari kara ayaa la aaminsan yahay sida Manchester United iyo kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain haddii ay koox diyaar la tahay adduunyadeed gaaraya 70 milyan oo lacagta Euroga waxa uu heli doonaa xidiga u dhashay wadankaasi Serbia ee Milinkovic Savic. waa hadalhayntii ugu dambeysay ee madaxweynaha kooxda kubadda cagta Lazio ee Claudio Lotito taasi oo markaa u cadeynayo 70 milyan in ka yar in aanan ciyaaryahanka
ciyaaryahankaasi Savage uu garoonka uusan kaga ambabixi doonin. wiilka reer Brazil ee Neymar Jr ayaa sheekadiisaasna waxaa la xusayaa in uusan ku qancinin maadaama uu doonayo xil ciyaareedkani in uu gabi ahaanba uu macsalameeyo magaalada Paris ee wadankaasi Faransiiska. Neymar ayaana markaa la sheegayaa in lagu beecin doono adulcageed gaaraya 170 milyan oo lacagta Euroga, balse kooxdii uu ka tirsanaa ee Barcelona ee ugu wardambeysay sanadkii 2017 ayaa ilaa hadda qorshahaasi ku jirta sida laga soo xiganayo jirada AS, waxaana la xusayaa in ciiraankani uusan ku qancinin mustaqbalka wadankaasi Faransiiska. haddaba haddii kooxda kubadda cagta ee Paris Saint-Germain ay lumiso xil ciyaareedkani ciiraankaasi Neymar, waxaa sidoo kale cabsi xoogan soo wajihi karta inay waayaan xiddiga kale u dhashay wadankaasi Faransiiska Kylian Mbappe, oo ayana sidoo kalena aad loola xiriirinayo sida Liverpool iyo kooxda kubadda cagta Real Madrid ee ku xifaaltamaya saxiixa ciiraankaasi. kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ayaa sidoo kale dhinaca kale la soo xiganaya inay qorsheynayaan Neymar inay fasaxaan xil ciyaareedka soo socda waa 2021 waana qorshaha ugu weyn ee kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ay doonayaan ciiraankaasi tan iyo xilligaasi inay ku sii hayaan magaalada Paris. Neymar muhiimadiisu waxay tahay in xil ciyaareedkan uu markaa ka dhaqaaqo si xil ciyaareedka cusub ee kooxda kubadda cagta Barcelona marka uu kaga soo dhex muuqdo. qorshaha adag ayaa laga warsugi doonaa bal inay ka jawaabto Barcelona qiimaha 170 milyan.